Mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa salka ku haya kiiska Ikraan Tahliil oo ahayd sargaal ka tirsan hay'adda sirdoonka qaran ee dalka Soomaaliya taasi oo la waayay Janiyo Cidhib halkan ay ku dambeysay iyadoo lagu tuhunsan yahay in dhibane Ikraan Tahliil oo ahayd sargaalad sare oo ka tirsan hay'adda sirdoon ee NISA ay ku maqan tahay gacanta isla taliskii ay ka howlgalaysay. madaxweynaha dalka Kenya Mr Uhuru Kenyatta ayaa booqday saldhigga ciidamada cirka ee magaalada Lamu ee ku taala xadka dhinaca badda ee ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya. madaxweynaha oo ay safarkiisa ku weheliyeen wasiirka difaaca Monica Juma iyo taliyaha ciidanka militariga ee dalka Kenya ayaa halkaasi ka jeediyay khudbad laga dhadhansanayay sida ay Kenya diyaar ugu tahay inay isticmaasho awood militari haddii maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ay xukun u xaglinayo Soomaaliya rido. inkastoo safarka madaxweyne Kenyatta lagu sheegay inuu halkaasi u tagay maamuus loo sameynayo saraakiishii iyo ciidamadii ku geeriyooday dagaalka ay kula jiraan kooxaha nabadiidka ee kasoo tallaabay xadka Soomaaliya ayay haddana jiraan tuhan laga qabo inay dowladda Kenya isu diyaarinayso inay qaado tallaabo militari taasi ay kula wareegayso dhulbadeedka ay ku muransan yihiin dowladda Soomaaliya. taliyihii hore ee hay'adda qaranka NISA Cabdisalaan Guuleed ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo doonayo inuu sirdoonka qaranka u magacaabo sargaal Soomaaliya oo haysta dhalashada waddanka Eritrea isla markaana qabaxaas u dhalatay waddanka Eritrea. qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay in madaxweyne Farmaajo doonayo inuu magacaabo taliyaha hay'adda NISA Cabdirasaaq Maxamuud Xaaji oo saaxiib dhow la ah madaxweynaha waddanka Eritrea Isaias Afwerki taasi oo uu ku sheegay inay halis ku tahay ammaanka qaran ee dalka Soomaaliya iyadoo mudane Cabdisalaan hadalkiisa laga dhadhansan karay inuu ula jeeday Cabdirasaaq inuu yahay shakhsi basaas u ah dalka Eritrea. Soomaaliya ayaa ku jirta xaalad jahwareer kadib markii uu dhamaaday muddaxileedkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasi oo halis gelin karta dhammaanba magacaabista iyo jihaynta qorshayaasha dowladnimo ee dalka Soomaaliya. Ilhaan Cumar oo kamid ah golaha Koongareeska dalka Mareykanka ahna haweeney Soomaaliya ayaa sheegtay in caalamku ku fashilmay wax ka qabashada tacadiyada ka dhaca magaalada Gaza ee waddanka Falastiin isla markaana ay wax laga xishoodo tahay in laga hadlo xuquuqul insaanka. Ilhaan Cumar oo haweeney inta badan ka hadasha tacadiyada ka dhaca magaalada Gaza iyo dhulka Falastiin ayaa markan u muuqatay sida ay ugu dhiiran tahay inay sii wado dadaalada ay ugu jirto sidii indhaha caalamka ay ugu soo jeedin lahayd xaaladda ka sii daraysa ee shacabka reer Gaza.